gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo ayaa xariga ka jaray waddo interloog oo laga hirgeliyay waaxda Jabuuti ee degmada Kaaraan isagoona shacabka iyo maamulka degmada Kaaraan ku amaaray qorshaha iskaashiga oo ay ku horumarinayaan kaabayaasha iyo isku socodka. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Cadaani oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadadani ay iska kaashadeen shacabka iyo maamulka degmada Kaaraan asigoo xusay in wadadani ay muhiim u tahay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee bulshada degmada Kaaraan. salaan kadib mudan gudoomiye ku soo dhaw degmada Kaaraan gaar ahaan waaxda Jabuuti wadadan 20 cisho ka hor ayaa noo dhagax dhigtay halkii maalintii dhagax dhigaysana gaari iska daay dad xataa ma mari karin haddeertaan sidaanay u qurux badan tahay waan ku dadaalnay annagoo iskaashanayno dadka halka degan iyo maamulka annagoo iskaashanayno iyo shirkadda dhisayso quruxdaan ka soo saarnay waddo kasta oo la dhagax dhigayana markii la dhagax dhigayo iyo markii la xarag jarayo way kala duwan tahay. maanta waddada aad ay u qurux badan tahay dadkan gaaridooda iyo haddii mootobajaad alaab ku doonan lahaayeen dhammaan way u fududaynayaan waddada dadka da'da iyo gabdhaha iyo caruurta waxbarashada aada dhammaan isku xirka bulshada aaday farxad u tahay wadadan. insha Allah waxaan sameeynaynaa waddo kasto oo saan u dhibaataysan quruxdaan oo kale inaan soo saarnay ayaan naga go'an mudana gudoomiye saaka dadka hal saac ay ku taagnaayeen soo dhaweyntaada inaan noo xarag jarto waana noo xarag jartay. waxaan kugu soo dhaweynaynaa degmada Kaaraan oo wada interlooge degmada Kaaraan oo wada quruxsan degmada Kaaraan oo wada laamiye degmada Kaaraan xalay xaflada waxay ka dhacayeen Yurub oo lagu taageerayo degmada Kaaraan. degmada Kaaraan horumaray gaartay hadii qurbaana laga taageerayo gudahana saan loo damaashada mudana gudoomiye in loo soo damaasha tago in loo soo dalxiis tago waxaan rajeynaynaa annagoo midaysan oo degmo qurxoon tusi karno bulshada. Gudoomiye Yabo ayaa wuxuu amaanay horumarka ballaaran ee ka socdo degmada Kaaraan. haddeer baan weydiinaya gudoomiyaha degmada adiga 20 beri 25 beri ka hor ayaa dhagax dhigay maantana waa aragtiina iyadoo interlooga in la furayo quruxda iyo baaxadda ay leedahay waa ujeedin lugta midda gaadiidka iyo midda dadka intaba siday ugu runta waa ujeedin bilicda guryaha meesha ku yaala iyo quruxdooda sida u soo baxayaan waa ujeedin gurigaana maantay waxaa laga yaabaa shalay markaan dhagax dhigayna inuu 100 ku joogay maantana waa la hubaa oo 100 kala ku darsamay mase waa u dhowday horta waddo macnaheeda iyo quruxdeeda nadaafadii qayb ka qaadane isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha qayb ka qaadane quruxdii qayb ka qaadane dhaqaalihii iyo kor u kobcintii ama kor u qaadidii guryaha ku yaala meeshaas kor u qaadaysaa amniga qayb ka qaadanaysaa oo waxba laguma duugi karo miigooyinka iyo qashinka iyo wixii khawaarijta carrada loo ordi jiray laguma duugi karo wax ku dhuuma kara male intaas oo dhan oo faa'iido ah horta leedahay waddo la dhisaa oo sidaan oo kale loo dhiso. Kaaraan marka waa dhaqaaqeen ninkii hadda halkan ka hadlayo yarkii shirkadda wuxuu sheegay in 20 waddo oo kala duwan ay ka socoto degmada. aniga hore baan u sheegay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Cadaani iyo maaragtay degmada maamulkeeda intaba iyo bulshada degmada Kaaraan inay horumar sameeyeen inay dhaqaaqeen in laga shaqeeyay Kaaraan inay maaragtay kor u soo kacdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. dad xunu ma jiraan maamul waxaa jira laga rabo hoggaan ayaa la rabaa hoggaan sidiisaba bulshadu wax hogaamiye u baahan yihiin bulshadu waxay u baahan yihiin wax tilmaama bulshadu waxay u baahan tahay qof maaragta waxa laga rabo
maaragta u sheega xoolahooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba xafida kana shaqeeya ayay u baahantaa bulshadu ayadaa waxeeda la baxaysa haddii ay hesho qof mas-uula oo ammaano leh oo xoolahooda ay ku aaminaan marka dabcan waxaan uga mahad celinaynaa maamulka degmada kaaraan oo guddoomiye cadaani uu u horeeyo inay bulshadii maaragta abaabuleen in bulshadii isku tashatay in bulshadii ay go-aan ku gaartay inay maaragtay dalkeeda iyo dadkeeda iyo degmadeeda intaba in la dhiso inay go-aan ku gaareen maamulkuna uu hormuud u yahay tilmaantii maamulkan lagu shaqaynayo aad iyo aad baan ugu faraxsan